wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka wararka Soomaalida waa 22 bisha 10 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah dawladda federaalka oo si xooga kula wareegtay hantidii gudoomiyay gobolka Banaadir Engineer Yarisow xabsigana dhigtay hanti dhowrkiisii maxaa ka jira inuu heshiis dhexmaray Cabdirashiid Xidig iyo Axmed Madoobe oo isku haysta magaalada Kismaayo maamulka gobolka Banaadir oo shaqada ka eriyay in ka badan 300 oo qof hadaba waa maxay sababta halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa todoba fursadood oo Soomaaliya u horseedi karta in si fudud ay uga guuleysato Kenya Xasan Sheekh Maxamuud oo dawladda federaalka ka dalbaday in shacabka Soomaaliyeed laga qanciyo sababta dib loogu dhigay dacwadda kiiska badda iyo nabadoon caan ah oo lagu dilay magaalada Kismaayo iyo xoga aan idinkaga hayno sababta loo dilay iyo cidda dishay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilawnay Axmed Nuur oo ahaa wakiilka hantida Engineer Yarisow hayay ayaa waxa uu u xiran yahay dawladda Soomaaliya waxa uu ahaa mid hayay ciwaanada gudoomiyaha ee Facebook Twitter iyo lacaga uu lahaa iyadoo culeys la saaray ay sabab ka dhigtay in ugu dambeyn hantida uu wareejiyay Axmed Jeex Maroodi ayaa waxa uu sheegay inuu la kulmay handadaad ay dil ku jirto balse uu diiday inuu dhiibo hantida uu Yarisow ka dhintay ugu dambeyntii waxa uu hantidaasi ku wareejiyay qoyska marxuumka iyadoo kadibna ciidamada dawladda ay xabsiga dhigeen qaar ka mid ah ehelada Axmed Nuur waxay dalbadeen in cadaaladda la horkeeno kuwii wiilkooda xabsiga dhigay isagana dib xoriyadiisa loo siiyo Axmed ayaa ka shaqeyn jiray xafiiska ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid xukuumadii hore ka hor waxa uu ahaa wariye qaybta website-yada wax ku qori jiray waayihiin dambana Engineer Yarisow ayuu la shaqeynayay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Engineer Yarisow oo ku dhintay qaraxa 24 bishii July ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa gacan yare waxaana sidoo kale la sheegayaa in Axmed Nuur uu u xiran yahay arrimo kale oo siyaasadeed dhinaca kalena xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka sidoo kalena taageerayaashiisa ay Kismaayo ugu doorteen madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hadlay wararka sheegaya inuu la heshiiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe qoraal uu soo dhigay xildhibaanka bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in waxba kama jiraan ay tahay warkaasi oo badinkooda lagu faafiyay baraha bulshada isla markaana ay ku qasabtay inuu ka hadlo waxaan arkayaa warar been abuur iyo riyo maalmeed isugu jira oo baraha bulshada lagu faafinayo oo lagu sheegayo heshiis iyo wadahadal u dhaxeeya aniga iyo madaxweynihii hore ee Jubbaland Axmed Islaam markan dhageystay isla markaana aqriyay wararka noocaas ah waxa ii muuqatay inaan laga maarmaan ay tahay inaan qoraalkan la wadaago taageerayaashayda gudaha iyo dibadda ayuu yiri xildhibaan Xidig sidoo kale waxa uu sheegay in qorshahaas ay soo abaabuleen madaxdii ka qayb gashay xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe ee magaalada Kismaayo oo sheegay inay yihiin qaran dumis isla markaana ay ku fashilmeen qorshe ay ku doonayeen inay ku kala furfuraan isbedel doonka Jubbaland ugu dambeyntii waxa uu soo qaatay 3 qodob oo uu sheegay in xubnaha isbedel doonka Jubbaland ay doonayaan in lagu dhiso maamul loo dhan yahay ee Jubbaland maamulka gobolka Banaadir ayaa shaqada ka joojiyay in ka badan 300 oo qof kuwaas oo ka tirsanaa shaqaalaha dawladda hoose ee gobolka Banaadir kadib markii la sheegay in dib u eegis lagu sameeyay liiska shaqaalaha warbaahinta ayaa ogaatay in dadka shaqada laga eriyay ay isugu jiraan laba nooc ama shaqo ka joojintooda loo maray laba qaab taas oo laga yaabo in shaqaale kale ay saameyso shaqaalaha shaqada laga joojiyay ayaa lagu sababeeyay labadan qodob oo kala ah in shaqaalaha shaqada laga joojiyay in badan oo kamid aysan hadda dalka ku sugneen oo u baxeen dalka dibadiisa dadka maqan waxay isugu jiraan kuwa tahriibay kuwa kale oo helay fursado dibadda ah oo dib la'aan ah ku tagay qaar ku maqan fasax laakiin laga saaray liiska shaqaalaha labo iyo qaar kale oo laga dalbaday in dib u habeen kadib ay la yimaadaan saxiix ama wakiil ka noqdo xildhibaan kuwaas oo heli waayay xildhibaankooda halka markii horeba ay ku joogeen saxiix ama wakiil ka ahaayeen odayaashooda dhaqanka iyo siyaasiyiin xilhaynin qaar badan oo kamid ah shaqaalaha lagu sameeyay shaqo joojinta isla markaana ku sugan magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay inay heli la yihiin xildhibaankooda dawladda maamulka gobolkana uu diiday damiinka qofka aan ahayn xildhibaankayga igama qabanayo mobilka muddo dheer ayaan wacayaa fariin waan u diray xataa odayga dhaqanka waa ka qaban waayay guddiga waan tusiyay inuusan qabanin fariin ka jawaabin ayuu yiri qof ka mid ah dadka shaqada laga joojiyay xog kale oo aan helnay ayaa sheegaysa inay jiraan dad ka badan
boqol qof oo kale oo laga yaabo inay saameyso arrintan. Boqolaal ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ayaa qaba walaac xoog leh oo ku saabsan mustaqbalka shaqadooda maadaama xildhibaanada ay u badan yihiin kuwa aan ka jawaabin moobilkooda. Markana Kenya iyo Soomaaliya, dib u dhigista kiiska badda marka laga eego dhinacyo kala duwan, dowladda federaalka waxaa ugu jira fursado ay ka faa'iideysan karto oo guul u horseedi kara in Soomaaliya ay gaarto kiiskaasi. Haddii aan soo koobo, waxaa ugu muhiimsan in dowladda federaalka ay siiso saami qaybsiga beesha degta Wajeer iyo deegaana ka tirsan Jubbooyinka Gedo, Shabeellaha Hoose iyo Bokool, taas oo loo arka haddii dowladda federaalka ay ku guuleysatay inay noqon karto mid aan lagu gorgortami karin baddeena oo dhulka ku dhirirsan ay degto beeshaasi. Waana mid ay ku baraarugsan yihiin madaxda ugu sareysa Kenya, maankoodana ka guuxaya inay jab ku tahay haddii sidaasi samayso dowladda Soomaaliya. Labo, ma jiraan golo wacyigelin oo arrimahani bulshada Soomaaliyeed kala hadlaya, waana arrin saameynteeda leh suurtagalna ka dhigi karta in dowladda Kenya ay marin habaabiso bulshada Soomaaliyeed. Waxaana muddooyinkii dambe soo batay khubaro iyo aqoon-yahano Kenyaan oo wacyigelin meediyaha u marinaya bulshadooda kuna dhiirigelinaya inay difaacaan baddooda. Saddex, kaalinta warbaahinta ee difaaca badda. Warbaahinta ka howlgasha Soomaaliya waxay ku dhiban yihiin inay helaan khubaro cilmiyan bartay oo aqoon durugsan u leh si faahfaahsan warbaahinta u hadla. Taasina waxay noqon kartaa fursad kale oo ay dowladda federaalka ka sameyn karto halkaasi si shacabka Soomaaliyeed loogu sheego inay badda iyagu leeyihiin ayna tahay inay difaacdaan. Afar, abaabulka qareenada ka soo qayb qaatay kiiskan waa fursad dahabi oo mar kale ay dowladda ku xoojin karto qareenadii difaacaya badda ee kiiskan halkan soo gaarsiiyay. Haddii ay dowladda isku keentana dad badan ay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay guul ka gaari karto. Ka baaraandegidda in saameyn uusan ku yeelan ololaha doorashada Soomaaliya. Inkastoo maxkamadda ay go'aamisay in kiiska la qabto Juun 2020, haddana waxaa la rumaysan yahay in waqtigaasi ay tahay xilliga ololaha. Waa fursad kale oo dowladda federaalka ay ugu faa'iideysan karto inay sameyso qorshe cad oo suuragelinaya in saameyn isku yeelan ololaha doorashada iyo kiiska badda. Waana arrinta dowladda Kenya ay u aragtay in fursad dahabi ay u tahay, isla markaana ay suurtagelin karto in dowladda federaalka ay ogolaato wadahadal ku aadan kiiskaasi. 6, wadajirta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Muhiimad gaar ayuu u leeyahay dowladda federaalka in beesha caalamka iyo Kenyaba ay arkaan Soomaaliya oo wada socota hal mowqifna leh, waxaana lagu gaari karaa in dowladda ay isku keento una muujiso xushmad iyo dulqaad maamul goboleedyada, iyadoo ka bilaabaysa Jubbaland oo lagu xanto inay Kenya garab siiso. Qodobka ugu dambeeyana waxa uu yahay in ciidamada Kenya lagu bedelo ciidamo Jabuutiyaan ah. Waa mid isku soo jiidi karta dowladda Farmaajo iyo shacabkeeda, waxa uu noqon karaa go'aan ay si isku mid ay u soo dhaweeyaan ummadda Soomaaliyeed. Kenyana ku noqon karto caqabad kale oo rajo xumo u horseedi kara. dhinaca kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo gudbiyay su'aalo la xiriira dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Xasan Sheekh ayaa su'aalo ka keenay sababaha dib loogu dhigay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo ay tahay markii labaad ee maxkamadda caalamiga ICJ ay ku dhawaaqdo in dacwadda badda dib loo dhigay. maxaa ku dhacay dacwadii badeena ee tiil maxkamadda ICJ? shacabkeenu waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan sababta dib loogu dhigay, ayuu ku daawacay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya. sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa madaxweynaha dalka xilligii dacwadda badda loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ICJ ayaa isweydiiyay in arrimahani ka soo cusboonaaday dacwadda badda inay tahay mid hordhac u ah in meel aan maxkamadda ahayn lagu galo dacwadda. ugu dambeyntii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay shacabkeeda ay siiso jawaab waafi ah oo la xiriira dacwadda badda. warkan ka soo yaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sii xoojinaya shaki ku saabsan in dowladda Soomaaliya ay u diyaar garoobayso sidii meel aan ahayn maxkamadda lagu xalin lahaa dacwadda badda. wasiirka hore arrimaha dibadda Yuusuf Garaad ayaa sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa uga hadlay sababta dib loogu dhigay dacwadda badda. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u sheegtay inaysan aqbalayn in mar labaad dib loo dhigo dacwadda badda, hase yeeshee markii maxkamadda ICJ ay dib ugu dhigtay mar labaad ay dowladuna si sahlan u aqbashay. ugu dambeyntiina wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay nabadoon caan ka ahaa magaaladaasi.
dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in nabadoonka ay dilka u geysteen kooxo ku hubeysan bastoolada isagoo goobta ku geeriyooday. warar la helaya ayaa sheegaya in marxuumka la dilay lagu magacaabi jiray nabadoon Siciid Adoon oo ka tirsan waxgaradka Jubbaland. raggii ka dambeeyay dilkiisa ayaa goobta si degdeg ah uga baxsaday, isla markaana waxaa halkaasi ku sugan ciidamada amniga maamulka Jubbaland. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino. waana mahadsantihiin.